Please like, share, subscribe to our channel. Thank you. السلام الصومالية ميل كستودا دونك جوجتين وولاشين أبح ورسمة أبح أرويلو أبح هالدا يمركلة يتردي تراد أسبوعا محان ربا إنان كاga hadlo on hal iyo laba ka oranaya horta disclaimer waxa la yiri ama afeef hore laho ama adkaysi dambe laho disclaimer kayga waxa weeyaan arrintan ma aha mid ku saabsan ragga Soomaaliyeed oo dhan laakiin qaar kamid ah ragga Soomaaliyeed ayaa maanta xogaa yar aan in ay leeyihiin sheegayna marka yaa la kala xanaaqin waa la dhiirigelinaya wacyigelin weeyaan arrintan ah iskaabulo baa ahay waxaan rabaa xogaa yar inaan fiirino arrintaas iskaabulo baan ahay bay dhahan gurigii oo isdhex yaala haddaad tiraahdo warhaad gurigan xuusaa kuugu yahay iskaabulo ahay cunno ma karsatid maana cunno karsan kara iskaabulo ahay dharkaaga ma dhaqatid ma inaan marka dharka maxaa dharkaaga aad meeshaas u geysaa oo adigu u dhaqan karin anigu iskaabulo baan ahay cunno ma karsan karo iskaabulo aan ahay dhar ma dhaqan karo iskaabulo aan ahay guri ma hagaajisan karo iskaabulo aan ahay waxaan la yaabanahay war gabdhuhuba iskaabulo ayagoo ah oo aanan nin haysanin bay hawshooda wataane adigu maxaa iskaabulaan ah excuse-ka ah muxuu yahay ma gacmaha la adahay ma waadan qabsan karin ma waxa raadinaysaa qof ku shaqaalo oo ku shaqeeya booyaaso aniga markaan guursado baan waxaas ka baxay ku leeyahay marka gabadha aad soo guursanayso waa in dharka ku dhaqdo cunnada ku kariso muxuu ahaa guriga ku hagaajiso marka hadhihin waan guursanayaayo guurdoon baan ahay waxa tiraahdaa booyaasaan rabaa gabar ii shaqeysaan rabaa shaqaalaan rabaa maid baan rabaa waayo iskaabula ahay oo waxba ma qabsan karo macnaheedu waxa weeye waxaan doonayaa hooyo kale oo hooyadaydii soo korisay ii bedesha marka su'aal isweydii marka su'aashan doonayay inaad iswada weydiisaan waxay tahay walaalahayow adigu waa fahansanahay hooyadii ku soo korisay ayada laftigeeda dhibaatada qayb bay ka tahay oo ayada kuleyba waxay ka dhigtay inaadan waxba qabsan karin oo ku soo tababarin haday ku bar lahayd inaad guriga marka aad joogto ayada cunnada u kariso ama gabdhaha aad la shaqeyso hadda dhibkan horta ma ku haysan lahayn oo horta qayb dumarku way ku leeyihiin taas waa qaadanaya laakiin waxaan rabaa inaad isweydiiso maxaas baad doonaysaa oo qof partner ah oo nolosha kula qaybsada doonaysaa mise booyaaso ama shaqaalaad doonaysaa mise hooyada ayaa gurigeeda ka soo tagtay hooyo kale hooyo ku noqoto ilaa wali xuduntii abadii iyo umbilical cord-ki baa soo keen xiran xuduntii wali hooyo kuugu dhigan ilaa ayada ku soo haysay oo afka wax kuugu soo gureysay waxaad rabtaa inaad hooyo kale heshid oo gabadha soo guursanaysid waxaad ka rabtaa hooyo inay ku noqoto bal horta waxaas oo dhan ma isweydiiseen bal su'aalahaas kala socda ka arrintan ah su'aashaas markaas weydiiso haddaa isu jawaabto waxaan rajaynayaa inaad isweydiisaan intaadan guursan marka haddaad ogaato inaad u baahan tahay gabar kuu shaqeyso booyaasa ah dee booyaasa iska hayar garayso walaalo guurma doonaysida haddaad doonaysid hooyo gabar kuu noqotona dee hooyada ha ka agtagin walaalo ayadaaba kuugu fiican laguma dhaamo gabadha islaameed ma rabto nin hooyo u noqoto waxay rabtaa nin nolosha la qaybsada marka iskaabulaan ahay horta meel waa inaan ku soo xirno iskaabulaan ahay ma aha excuse iskaabulaan ahay ma qabsan karo iskaabulaan ahay waa dhimanaya iskaabulaan ahay waxaan rabaa gabar iskaabulanimada iga saarta waa gabar ii shaqeysaan haddaa maqlan ninkii oranay iskaabula ahay macnaha waxa waaye gabar ii shaqeysan ama gabar hooyo ii noqoto aan raadinaya marka arrintaas waa in meel lagu soo xiro